kormeerkan ay xeer ilaalinta gobolka Gabiley ay ku marayeen saldhigyada ku yaala degmooyinka gobolka Gabiley ee Arabsiyo Wajaale Allay Badaya Geed Ballaadh ayaa waxa uu gundhig u ahaa qodobka 45 farqadiisa shanaad ee xeerka nidaamka garsoorka Soomaaliland waxayna saldhigyadaasi ka baadheen maxaabiis ku muddo dhaaftay isla markaana si sharci darro ah ugu xidhan saldhigyadaasi waxayna taliyaasha saldhigyada ku dhiirigeliyeen marka maxbuuska la soo xidho aan lahaynin ee 24 saacadood gudahood cadaaladda lagu hor keeno haddii uu dambi ku jiro haddii kalena la sii daayo xeer ilaaliye Yuusuf Biixi Maxamed iyo xeer ilaaliye Yaxya Aadan Maxamed oo faahfaahin ka bixiyay waxa uu daaran yahay kormeerkani ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa kormeerka shaqooyin maanta ku mareeyay saldhigyada degmooyinka gobolka Gabiley hoos yimaada sida Kalabeed Arabsiyo Allay Badaya iyo Wajaale ma joogno saldhigga Wajaale waxa uu daaran yahay kormeerkayga sidii aan ugu kordhin xaaladda saldhigyada gobolka haday noqoto caafimaad ahaan nadaafad ahaan iyo inaan saldhigyada ku muddo dhaafin maxaabiistu diinkan ku jirnay kormeerkan waxaan la kulanay haday noqoto saldhigga Allay Badaya aan kula kulanay iyagoo aan wax maxaabiis ugu jirin iyo wax muddo dhaafitoona halka saldhigga Gabiley Wajaale aan kula kulanay maxaabiis xeer ilaaliye Yuusuf Biixi waxa kale oo ka hadlay taariibayaal isugu jira rag iyo haween oo ku xidhan saldhigga magaalada Wajaale kuwaas oo diiday inay sheegaan halka ay ka yimaadeen iyo in loola hadlo waalidiintii dhashay saldhigga Wajaale aan kula kulanay maxaabiis iyagu sideeda oo taariibayaal iyo afar dumar oo iyagu taariibayaal 12 maxbuus uga faa'iideysanaya fursadan waalidiintii dhalay in ay u soo hagaagaan saldhigga Gabiley iyadoo la garanayn iyaguna ay diideen in ay sheegaan meelaha ay ka yimaadeen iyo ciddii ay ka dhasheen la aqoonsan waayeen maxaabiista waa markii ugu horeysay ee xeer ilaalinta gobolka Gabiley ay sameeyaan kormeer cadaaladeed isla markaasina ay saldhigyada ka baadhaan dad si sharci darro ah u xidhan waana arrin ugub ku ah xeer ilaalinta gobolka Gabiley Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV Gabiley